marka hore ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Arrinta su'aashaadi weydiisay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumadooda. Horta madaxweynuhu waa madaxweynihii ugu soo dhaweynta badnaa Soomaaliya, madaxweyne shacabku doortay ahaa, ra'iisul wasaaruhuna sidoo kale ahaa, xukuumaddana sidoo kale loo soo dhaweeyay. runtii sida wax u socdaan ama isbedelkii muuqday waa wax lagu naloon karo ama Soomaaliya ay ku faani karto sida wax u socdeen. hal qodob waa u soo jeedinayaa Puntland oo hooyadii Soomaaliya ahayd oo dhibada Soomaaliya ku taagan tahay, waxaad moodaa inay ka sii jeensatay ama ka indhasaabanayso dawladda federaalku, sababtoo mudnaanta koowaad bay Puntland iska lahayd. waxay u dhigantaa maamul goboleedyada kale oo la isku daray markii xaqiiqada laga hadlo, dal ahaan iyo dad ahaan iyo wax qabad ahaanba. sidaa darteed weli xataa booqasho kuma imaan intii ay xilka hayeen. iyadana haddee waa qodobka dhalishaas waa u haynaa, laakiin waxqabadka kale oo horumarinta shacabka, horumarinta waddanka dhinac kastaba ha ahaato, waxaad moodaa isbedel ballaaran oo aan ka jirin ilaa dawladdii Siyaad Barre sida ay u burburtay intii dhexe aan la arag inuu maanta muuqdo. waxaana leenahay waa intaas aad ugala dhawaataan. muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed ahmiyad badan bay idin hayaan, gaar ahaan reer Puntland haddee xoogaa halkaa jaleecadaasi waa jidhaa. idinkuna haddee wixii aad uga cudadaarateen ama uga laalaabateen taasi ma aqaan waxay tahay, midhay qaybaha kala jeceshihiin waan taana leenahay. marka balse ma ankiri karo waxqabadka in la ignore gareeyo ama la ankiro maaha. ciddii waxqabatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadduba waxqabad muuqda baanu ka aragnaa. waxaana jecel lahay inay dawlad iyo shacabba nala shaqeeyaan oo annaga ruuxa iyaga Puntland mudnaanta ay leedahay siiyaan, hadday tahay maamulka iyo hadday tahay shacabka. intaasaan u soo jeedinayaa. haddii la beeldareeyo maamulka oo khilaaf soo dhex galo, maalin dhaweyd waxaan maqlayay aragti lagu kala qaybsamay oo madaxweynaha Puntland ka hadlay in Sacuudiga uu arrintiisii soo dhaweeyey, qadarna oo diiday. annaga qadar shaqo kuma lihin, jaarna maahin, laakiin Sacuudiga ma kala maarano. wax badan baa naga dhaxayo, amni baa naga dhaxayo, saaxiibtinimo baa naga dhaxaysa, ganacsi baa naga dhaxaya, wada shaqayn baa naga dhaxaysa. Imaaraadka hadda waxa ka socda waa la socotaan, kadib wasasada la ballaarinayo. marka cid ood kaafawi kuma dhaxantidho meel kale fog nin jooga ama dawlad joogtaa waxba annaga naguma taal. laakiin waxaan rajaynaynaa in arrimaha siyaasadda oo laga yaabo in wax lagu kala duwanaada la isku soo dhaweeyo, dawladda federaalkuna mar walba rabitaanka iyaga ay soo dhaweyso ra'iisul wasaare iyo madaxweyneba. maamulka iyaga iyo shacabka iyaga anagu waan midaysannahay. Puntland horumar wanaagsan baa ka socda, aad iyo aadna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay hore u sii socdaan insha Allah billahi karim. أحيانا برحت كارتا إلى حوالك إنه أنت متشوق له والله أنت صرت يسعك وبنتنا سوي وكان arrintaas aad baan ugu faraxsanahay. waxaan waliba ku sii faraxsanahay hubka dhigistii lagu sameeyay maleeshiyaadka iyo dadka hubka iska haysta oo marba dhinac adeegsanaya ama dalka ku dhibaataynaya, in dawladda kaliya hubka ku wareego shacabkana gacantiisa laga wareejiyo. aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa, dawlad iyo shacabna ugu faraxsanahay. dadka Soomaaliyeed maanta wuxuu rabaa waa laga soo daalay dhibaato iyo dagaal iyo xabad. qof walba hadduu qorisistana dadka dhan baa wada dawlad noqonaya iyo ciidan. marka waa in la kala soocan yahay oo dadku shacab iyo dawlad kala yahay. arrintaa waa ku dhiirigelinaynaa Farmaajo geesinimada iyo raganimada uu wado, waana ku garab taaganahay.